بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال باجرت نور رحمنيد ودهيسي الركاز وحا ليرادو waxa dhulka ku duugan oo qof haduu helo zaka ma ka waajibaysa goormuu bixinaya inteesa bixinaya waxa dhulka ku duugan oo dhan ba soo galaya inkastoo culimada qaarkeed ay yiraahdaan kuma jiraan macaadintu kuma jirto oo maalikiyada ay ugu horeeyaan laakiin sida xooga badan waxa way rikaaz oo dhan wax dhulka ku jiro hadii laga helo oo dhan inay ka waajibayso khumus shan meelood meel boqol haduu yahay 20 aad bixinaysa 5 haduu yahay 10 baa bixinaysa waxana la bixinaya marka la helo مثلا waxa ka soo qaadayna dawladaha petrolka leh petrol hadii la soo saaro zaka ka waajibaysa su'aalihi marka waxaan galeynaa lixaad 10kii lixaad 60 guriga degan tahay gaarigaaga warshada daaraha iyo dhulka dadka ijaartay sako ma laga rabaa guriga degan tahay gaariga aad isticmaashid warshada wax soo saarta daaraha dhulka aad dadka ijaartay maaha dhul aad ugu tala gashay tijaaro ee waa dhul ijaar lagaaga aad ka qaadatid sako ma laga rabaa guriga degan tahay gaariga iyo warshada iyo dhulkaas oo dhan iyaga lagama rabo qiimahooda saka lagama rabo laakiin wixii ka soo baxa hada guriga degan tahay waaba degan tahay gaariga aad fuulaysidna lagama rabo sako laakiin guri dadkaaga ijaaran wixii ka soo baxa saka la rabaa iyaduna waa inay noqotaa magaranaysa hawl oo waqtigii uu gaaraa ee hadaan bishaan inta ka qaadatid cuntid saka ka waajibi mayso 62 dumarku dahabka ay xirtaan saka ma laga bixinaya dumarku dahabka ay xirtaan zaka ma laga bixinaya wala isku khilaafsan yahay arinta iyada culimo waxay leeyihiin lagama rabo culimana waxay leeyihiin waa laga rabaa sida ahwad sida nabadgelyada badanna haduuba gaaro nisaab in zakada laga bixiyo hadda qof haysata 1 kiilo dahaba oo bari gadan karta oo maalin walba ama duruufeed eegaysa markay jaan soo heshana iibsanaysa hada zaka inay ku waajibaysa u muuqata 63 haday zako horay kuugu baaqatay sanad ama 2 sano ma laga raba ina gudid hadii zako kuugu waajibtay oo aadan bixin oo kuugu baaqatay sanad ama 2 sano ka badan ma gudaysa mise gudamaysid waad gudaysaa zakada kugu baaqatay sanad han noqoto 2 han noqoto 10 han noqoto 50 han noqoto dib baad ugu noqonaysaa wixii marka aad haysatay waadna qiyaasaysaa waadna ka bixinaysaa zakada leena waa wax korkaaga ah deyn korkaaga ah weey 64 deyn aad qof ku leedahay yaa laga rabaa inuu zakada ka bixiyo deyn qof aad ku leedahay yaa laga rabaa inuu zakada ka bixiyo iyadana waa mas'ala la isku khilaafo waxa la leeyahay waxa laga rabaa qofka iska leh deynka waxa la isku khilaafaya intee buu bixinaya laakiin qofka iska leh lacagta ama maalkaas ku leh qofka ayaa zakada bixinaya goormuu bixinaya waxa la eegaya qofka uu ku leeyahay zakada qof buuxa haduu yahay sano walba waa bixinaya haduu qof mucsir yahayna wuu sugaya markuu ka helo ayuu hal sano ka bixinaya uu sugaya haduu mucsir yahay oo bixin karin markii uu suurtowda ayuu ka helo buu hal sano zaka ka bixinaya laakiin haduu buuxo oo uu ka heli karo dacweyn karo oo ka heli karo zakadii isaga laga rabaa qofkii iska lahaa maalka zakada dahabka ka yar nisaabka iyo kan lacagta oo nisaabka ka yar iyo kan tijaarada iyo kan beertu inta mid ahaan mid walba haduu ka yar yahay nisaabkii intii lagu bixin lahaa haduu ka yar yahay ma la isku daraya marka ma la zakaynaya dahab baa haysata 85 ka yar waxa haysata lacag 595 ka yar waxaad haysataa
maxaa beer wax ka soo gaayo nisaabkii ka yar, tijaaradii oo iyadu nisaabkii ka yar, wixii oo dhan nisaabkii ka yar ma la isku darayaa markaasaa sakada laga bixinaya? maya, la isku dari maayo haddayan mid walba gaarkeed ee nisaabkii u gaarin. 66 haddii maalqabeennada muslimka ahi si saxa u bixiyaan sakada, qof muslima oo baahan ma la arkayaa? haddii maalqabeennada muslimka ahi si saxa u bixiyaan sakada, qof muslima oo baahan ma la arkayaa? su-aashaas laba qayb bay leedahay. maalqabeen yaa waaye, hani yaa waaye. hani waa qof maal zaka gaara haysta. horta taas ha u marin maalqabeen nimanka milyaneerada iyo bilyaneerada maaha. haddii aad haysatid wax gaaray zako, maalqabeen hani baa tahay. marka haddii qof walba oo zaka ku waajibtay uu zakada bixiyo, qof faqiira oo muslima lama arkayo, bal gaalada inteeda badan ayaaba la quudin karayaa, iyo shimbiraha iyo xoolaha. 67 sheeg, zakada ma loo rari karaa wadanka aad joogto aan ahayn? sheeg, zakada ma loo rari karaa wadan aan ahayn wadanka aad joogtid? waxa awlaa ah in lagu bixiyo wadanka aad joogtid, masaakiintiisa la siiyo. laakiin hadday deeqtoomaan ama dadka wadanka la jira oo abaaro iyo dagaallo iyo dhibaato qabsatay ay ka daran yihiin, waa loo rari karaa. zakadii waa loo rari karaa. laakiin waa goorma? waa goorta masaakiinta agtaada joogta ay kaaftoon yihiin. 68 qaraabada zakada ma la siin karaa? sida walaalka, abtiga, adeerka, habaryarta, eedada ma la siin karaa? zakada ma la siin karaa qaraabadaada sida walaalka, abtiga, adeerka, habaryarta, eedada iyo dadka la mida hadday sabool yihiin? waa la siin karaa hadday istaahilaan oo 7 qolo aan soo sheegnay ay ka mid yihiin, waa la siin karaa. fuqaraa iyo masaakiin hadday yihiin, mustaxaqiin ay yihiin, waa la siin karaa. 69 aabbaha, hooyada, xaaskaaga, awoowaha, caruurtaada zakada ma la siin karaa? aabbaha, hooyada, xaaskaaga, awoowaha, ayeeyada, caruurtaada zakada ma la siin karaa? maya, dadka aan soo sheegnay zakada lama siin karo. maxaa yeelay waxaa kugu waajiba inaad nafaqaysid. waxaa kugu waajiba inaad nafaqaysid, marka zaka ma siin kartid. laakiin hal arrin baa ku jirta. haddii qofta dumarka ah ay maal qabeen tahay oo zaka bixinayso, ninkeeduna uu faqiir yahay, way siin kartaa. ninkeeda waa siin kartaa. maxaa yeelay kuma waajiba iyada inay nafaqayso isaga, walaa caruurtiisa waajib kuma aha. su-aasha 70aad ma la sakaynayaa maalka iyo faa'iidadiisaba iyo xoolaha iyo waxay dhalaanba? ma la sakaynayaa maalka iyo faa'iidadiisaba iyo xoolaha iyo waxay dhalaanba? su-aashaasna iigu soo jawaab, kommentiga ku soo qor ama tacliiqa. waxaana ka jawaabi doonaa biidni illaahi tacaala xalaqada soo socota. inta ayaan ku soo koobaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.